su-aasha xigtana waxay tahay sideebaa diin ay uga qayb qaadanaysaa human civilizationka ama ilbaxnimada Soomaalidu ay gaadhay sideebaa diin ay qayb uga noqotay ama qaybta ay diini ku leedahay in dad bini'aadamku uu ilbaxo wax ma nooga sheegi kartaa runtii waxa aan jeclahay arrinta oo aan qayb hore uga soo hadlay haddana aan doonay inaan balbalaariyo anigu waxaan ku hadlayo waxa weeyaan waa in Islamic perspective oo runtii waxaan ka hadlayo uma hadlayo cid kale inta aan ogahay iyo inta aniga aan ku dhashay iyo inta aniga aan darsay baan idinla wadaagayaa dadkaan ku talagalay fariintan inay gaadhana waxa weeyaan waa dad sidoo kale ah oo ay dhici karto dad tiro yar oo ugu khilaafa oo ay dhici karto inaan ku kala duwanahay xagga diinta iyo tarjumaadeedaba laakiinse maadaama anigu aan ahay qof muslim ah oo Islamic perspective aan arrintan aan uga imaanayo aragtida xagga ay ku salaysan tahay human civilizationka sidiisaba wuxuu ka bilaabanayaa sida annaga ama islaamku uu aaminsan yahay in existence of Islam jiritaan waxa loo yaqaano Islam oo ah in la isu dhiibo Allah subhanahu wa ta'ala oo khaliqi koonkana fikirka noocaasa haddaanu nahay dad muslimiina waxaanu aaminsanahay Allah subhanahu wa ta'ala oo keliya oo caalamka rabbil caalamiin ah iyo inuu soo dirayo dad nebiyo ah iyo rasuul oo caalamka markaa fariin asaga ka timid soo gaarsiinaya markaasaa leeyahay waxa weeyaan aadam calayhi salaam oo aabbahay bini aadam ayaa runtii wuxuu noqonayaa Allah subhanahu wa ta'ala qofkii uu doortay inuu ku bilaabo aadanaha kadibna waxaa raaci doona lendan oo rasuul ah iyo maxaa la jiray nebiyo ah prophets and messengers nebiyo iyo rasuul waa maxay nebi waa qofka Allah subhanahu wa ta'ala keligii uu la qitaabayo la hadlayo oo fariin uu ka helayo Allah subhanahu wa ta'ala waa asaga iyo Allah ay leeyihiin xiriir oo fariimaha Allah subhanahu wa ta'ala imaanayaan ee aan sala amrin inuu wax kala qabto oo aan dadka gaarsiin loogu talagalin macnaha ha noqoto riyo ha noqoto maxaan ku rahdaa fariin sida doonto rasuulsha loogu soo dhiibo waa sabab ku oo ummadda uu maxaa leeyahay jiray iyo ama rasuul oo inta lala qitaabo dabadeedna fariin loo dhiibo oo fariintii dadku ay gaarsiiyaan iyana waa rasuulsha noocaas oo kale ah marka haddaynu nahay dad muslimiin ah nebiyadoo dhan ama rasuushoo dhan waxay ka wada sinaayeen hal fariin oo ah in Allah subhanahu wa ta'ala uu keliyahay oo isaga keliya uu qaaliq yahay inagana makhluuqiin aynu nahay oo waxay markaasi ay dhiirigelinayaan waxay tahay sidii la isugu dhiibi lahaa rabbiga koonka iskale taasay ka wada sinaayeen marka abuna aadam oo aabihii bini aadamka wuxuu ahaa nebi inkastoo iman doonaan gadaal dambe rasuul badan oo fariimo gaarsiin doona marka fariimahaasi iyo khitaabkaas Allah subhanahu wa ta'ala uu guidance-ga ku soo bixinayo ee bini aadamka sida directly indirectly ugu imaanaya ayay ilbaxnimadu ka sameeymaysaa marka maxaa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala koonkan abuuray isaga yaqaan wuxuu abuuray sidii ku shaqeyn lahaayeen inkastoo mashiyo bini aadamku leeyahay oo iyagu doonista ay leeyihiin laakiin se Allahna wuxuu na siinayaa fariintaasoo inoo hogaamisa fariintaasoo inoo horseeda jidka wanaagsan wadada toosan dabadeedna aanu ku aflaxno daarta aynu joogno ee ah dunida tan iyo daarta dambe ee qiyaamaha taana waxay ku cadayd runtii markii Allah subhanahu wa ta'ala uu malaa'ikta la khitaabay oo uu yiri waxaan doonayaa inaan abuuro qof bini aadamkaasoo maxaan ku raasay ubadkiisa caalamka degi doona oo takhliif la dhaxli doona I will create a khalifa on earth dhulkana waxaan ku abuuri doonaa khalifa Salmon oo markaa amaradayda qaata oo sidaa markaa caalamka u dega
oo ay malaa'igtu la khitaabi doonaan alla subxaana wa tacala iyagoo weydiinayo dhahaya ma waxaad abuuraysaa markii ay arkeen makhluuqa laga hadlayo in aanu iyagii ahayn maxaa yeele iyagu waa makhluuqaas oo mutiiciin ah oo aan waxba khilaafayn oo amarka la siiyo ayaga dhanba waa cibaadatu-raxmaan bay u samaysan yihiin makhluuqan laga hadlayo aadamna waa makhluuq oo runtii jinsi leh oo shahwo leh oo maxaa la dhihi jira waxyaabo badan oo ay dhici karayso inay ku xambaarto inay amar diidaan ama amar qaadan waayaan ama dhiig dacdiyaan ama dhibaatooyin badan caalamka ku abuuraan baa laga hadlayaa marka iyagan ra'yigoodii ka dhibteen waxay yidhahdeen dadka noocaas oo kalaas oo dhibaato kuma ay aha markaasaa alla subxaana wa tacaala wuxuu ugu jawaabaya wuxuu leeyahay waxaan ogahay waxaydan idinka ogeyn waxaan ogahay wax idinka idan ogeyn oo kadibna taariikhda dheer iyo sheekada dheer ee qur-aanka uu ku cad ee alla subxana wa tacala inoogu sheegayo in ay malaa'igta marka dambe u sujuudi doonaan ilaa iyo mid shaydaan la yidhaahdo mooye shaydaankaasi malcuun uu noqon doono sheekadu xaggaasi ka dhacaysaa marka muhiimaddu waxay tahay diinta alla subxaana wa tacaala diimaha samaawiga ah ee alla subxaana wa tacala uu caalamkan usoo diray ayaa qeyb ka ah saldhig u ah maxaa yeelay waxay wadaan fariin oo khaaliqii abuuray caalamkan ayay sidaan marka qolyihii ku aflaxana oo sidaa u dhaqangeliyana runtii waxay helayaan runtii wixii loogu talagalay oo ay daartan ay nool yihiin oo caalamka ay ku jiraanna way ka faa'iidayaan daarta dambena ee loo socdana alla subxana wa tacala wuxuu u ballan qaaday iyana ay ku aflixi doonaan marka ilbaxnimadu waxaa aasaas u ah fariinta alla subxaana wa tacaala inooga imaanaysa maxaa yeelay sidaani gadaal dambe ku arki doonno markii aadam loo soo daadejiyey dhulka alla wuxuu yidhi waxaa xaggayga idinkaga iman doona hanuun guidanceigaas marka qofkii raacana waa hagaagayaa oo waa hanuunayaa oo waa badbaadayaa qofkii diidana hadda waa khasaaraya waa hoogmaya waa halaagmaya marka ciddii qaadatay waddada toosan ee alla subxaana wa tacaala iyo guidancigiisana way badbaadaysaa sidaasaana marka ilbaxnimadu runtii aan ugu salaynaynaa annagoo aaminsan diinta iyo maxaa la dhihi jiray in islamic perspective diintu waa aasaaska ilbaxnimada la sheegayo waa diintuna alla subxana wa tacala bay ka timid haddii dadku ay la yimaadaan diimo kaleo iyagu ay samaysteen ama shahwadooda ay ka samaysteen ama ay ka samaysteen meelo kale oo waxay ugu magac dareen diin ama diimo aynu arki doonno dadku marka intaysan islaamkuna soo gaaran innaga gaar ahaan aanu diimo ka dhigan waxaas o dhan waa arki doonaa sida ay maanta markaad fiirsid waad yaabaysaa waxaad leedahay waxa kaas sidee baan u aaminay ama awowayaashiina sidee waxaa u aamineen hadalku wuxuu ku idar yahay sidaa aan kuu sheegay bay ila tahay in diimuhu ay raad ugu leeyihiin bilowgii iyo horumarkii iyo leebalka ugu sarreeya ee ilbaxnimo ay gaari karto oo bini aadamka qofkii diin haystaa ilbax ah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu